assalaamu calaykum akhyaaray waa idin salaanay meel walbaad joogtaan fadlan sii shargareeya oo asxaabtiina u gudbiya qodobkan waa kilibkeenii saddexaad ay maanta ay bishu tahay 23 bisha janaayo 2022 waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa haddii alla idmo daqiiqadaha soo socda ciidankii in muddaaba lagu maqnaa dalka Eritrea ciidankan waxaan ognahay marxalada kala duwan inuu soo maray gaar ahaan maaragtay waqti ay jirtay midowga musharaxiinta beelaha hawiye ay ku ololeyn jireen ay dhihi jireen ciidamadaas dagaal ayay galeen sidaas lamida kuwana walaacayn maaragta mudaharaadina ay dhigi jireen maaragta dadkaas ay maaragta siyaasadda ku matalaan iyagu uga faa'iideysanaya duruufaha iyo maaragta ololahooda oo qaaska ah iyagoo raba in madaxweynaha meesha ay ka baxaan dabcan de ololahu waa wax iska caadiya laakiin waxyaabaha qaarkood waa maaragta waa lama taabtaan weeyaan oo maaragta hooyo Soomaaliyeed oo ilmaha intaas soo korinayso ogaannimo ku soo korinaysay ama maaragta dad la ku roon yahay odagiiba maaragta waxba heynay korinaysay in maaragta lagu walaaciyo saahate waxaa la soo warinayaa oo ilo wargalaha ay sheegayaan in ciidamada kollow ay imaanayaan dalka ay ku soo wajahan yihiin maaragta magaalada muqdisho ciidamada tiradooda waxaa lagu sheegay ilaa 5500 saahate way ka badnaan karaan dabcan anigu naftarkayga waan aaminsanahay inay intaas ka badan yihiin ilaa 10,000 ilaa 15,000 inay gaarayaan ciidankaas dabcan in badan aaminsan oo dadkeena ka mid ah saahate hadda waxaa lagu sheegay 5500 ayaa tirada hadeertaan maaragta la isku qirsan yahay ummadda ay socota uun kulley bay soo sheegayaan saraakiisha 5,500 waa qaybo kala duwan ciidamo badeed ayaa ku jira ilaa iyo guuto ka mid ah ciidamo badeed oo loo soo tababaray ilaa iyo dhowr iyo 10 doomood oo huuri si fiican u qalabaysan oo hadduu alle ku ron yahay badda ka howlgeli doona haddii alle ciidanka intiisa badan qaybo ka mid ah waa military oo waxaa la rabaa shaqooyinka militariga inay qabtaan sidaas lamid ah qaybo waxaa jira hadduu alle ku ron yahay sirdoon ah oo qaab sirdoon maaragta u abaabulan oo u tababaran oo tababar culus oo sirdoon wata ama sirdoonka muuqda ama midka qarsoonba labadaba midka doonaba ha ahaadee waxaa kaloo jira niman hadduu alle ku ron yahay ciidan booliisaha oo booliiska militariga loo yaqaano iyagana waa ku jiraan hasaate tiradaas markii loo qaybiyo wax yar bay kasoo noqonayaan waxaase cad meeshaas caddeyn kaaga filan markii qaybahaas loo qaybiyo in ciidanku intaas uu ka badan yahay ilaa 10,000 15,000 18,000 20,000 ay gaari karaan ciidanka hasaate dee waa dabcan waa iska arrimo military dowladdu waa ku qasbanta waa inay ku saxantahay inaysan tirada sheegin laakiin waa la iska qiyaasi karaa dalkeenana wax badan oo qarsoon ma jiraan walaacyo ayaa jiray dabcan walaacyadaas oo ah in doorashada iyadoo ku jirta in maaragta ciidankaas la keeno hase ahaatee halkan mar haddii waqtigan la joogo maantadan ee doorashadii lagu heshiiyey oo maaragta kii ugu dambeeyey kulankii ugu dambeeyey ay yeeshaan guddiga qaran ee maaragta hadduu alle ku roon yahay wada tashiga qaran ku magacaabo maalgooyey ra-iisul wasaare uu soo gabagaboobay hasaasi lamid a marka haddii intaas laga soo habeeyey maaragta waqtiga halkaas la gaaray dabcan haddeertan waxaan u malaynaya shakiga waa yaraan doonaa ciidankaas waxaa la yidhi waxaa loo diyaariyey meesha la yidhaahdo xerada Gordon xerada loo bixiyey General Gordon warshada ku dhagan hadduu alle ku roon yahay maaragta caanaha eriyadeeda haddaan qaldanayn sidaas lamid ah ciidanka meeshaas ku jira waa la baneeyey ciidanka mushaarkiisa waxaa bixin doonaa maaragta nimanka qadar la yidhaahdo oo dabcan dalkeena ku in badan walaaqaya ka mid ah ama maaragta barnaamijyadan argixisada maaragta hadduu alle ku roon qaybo ka mid ah dee madax ka ahaa sidaas lamid ah waxaa la yidhi ciidanka mushaarkiisu 300 buu noqonayaa oo mushaar ahaan waxay la ekaan doonaan baa la yidhi oo aragtaa dhanka iska la egyihiin baa la yidhi ciidanka gorgor oo 200 oo ka mid uu bixiyo ninka la yidhaahdo Turkiga 100 ay dowladdu bixiso wax walba ay ahaataba maaragta xogta maaragta kooban waa intaa dabcan wixii kasoo kordho qodobada kasoo kordha maaragta waa idin soo socodsiin doonaa hase ahaatee haddaan sii raacino ciidamo badan ayaa in badan waxaa haddana saas lamid lagu sheegay in halkaa ka dagaalamay meesha la yidhaahdo dhulka Tigray ee waqooyiga Ethiopia maaragta hadduu alle ku roon yahay dagaaladu ay ka socdaan ilaa iminka hase ahaatee haddii ciidanka tiris inta lagu qaado tiris dabcan lagu soo celiyey ciidamada ka dagaalamayay waa dadkii soo sheegay ayaa looga fadhiya caddeymada rasmiga ilaa haddana wax caddeynaan sooma sheegin ilaa ay yidhaahdeen ciidamo ayaa halkaa ka dagaalamaya mooyaane wax aan maalmo aan fogeyn waxaa wargeys ka soo baxa Canada ayaa wuxuu sheegayay in uu wareystay dad marqaatiyaal uu ku sheegay maaragta dad maaragta nin meeshaas joogo maaragta nin weyn oo oday oo meeshaas joogo 52 jir oo meelahaas daadiisa inuu yiri maaragta meeshaas Soomaali baa ka dagaalantay cadeymihii hadii la weydiin wuxuu yiri waa Soomaali baa loogu yeeray ayagana luqad kale ku hadlayeen
reer galbeedku danahoodu waa iska badan yihiin oo dabcan maaragta idaacadahooda ayagu un u shaqeeya marka maaragta hadduu alla kuuriyo xoogaha maaragta nimanka kasoo kordhaya way soo badanayaan hase haatee waxaan rajaynaynaa maaragta in dalkay maaragta ayagu bad qaba ay kusoo laabtaan shaqada qaran oo loo idmadana ay ka bilaabi doonaan haddii alla isku furista beerdhabo iyo muqdisho oo kale tusaale ahaan ama ilaa iyo maaragta bu-aale ay sii socdaan waxyaalaha ugu culus oo looga fadhiyo waa inta mar kale waxaan maaragta idinka rajaynaynaa ama idinka codsanaynaa inaad sii sheer garaysaan kilibkan haddii alla kuuriyo muhiimka ah wassalaamu calaykum waraxmatullah